بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalaha muslimiinta ee ku nool geeskan ama deegaanka Soomaalida waxaanu ka codsanaynaa maadaama aanu bilownay masaajid G+1 dhandhaba inaan ka dhisno maadaama ay tahay magaalada madaxdii degmada Baabili in nin walba oo islaam oo walaal ah oo Soomaali ah oo islaam ay wixii ay woodi karaan ay ku soo beeriyaan masaajidkaas sidii loogu dhisi lahaa ummadda tabaalaysan ee area-da ku nool ee muddada badanna rafaadsan hantiduna ku yar tahay abaar iyo colaaduhuna ay ku bateen maanta inta isxilqaantay u diyaar garowday inay ummadii dhinac ka raacdo hawo badan la timid oo tiri in masaajid zabaq ah oo waliba madrasadiisina wataan dhisanaynaa oo anagu isku tashanaynaa oo ku dhisanaynaa hantideennii markii ay subkii gudaha ama sagxadda shubeenna hantidu ay ka go'day walaalaha muslimiinta anagoo ku hadlayna dhaqan ahaan uwaasyadii deegaanka in la caawiyo wixii kaalmo ah dadka muxsiniinta ee ognahay hadda ka horna wax badan ka qabtay inay masaajidada dhisaan inay hantida ku caawiyaan guda iyo dibad qurba joog iyo qaran joogba ayaanu ku codsanaynaa anagoo ku hadlayna afka dhaqanka degmada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.